kusoo dhawaada channelka Ruuxi Home Decor waa walaashini Raxmaan Ruuxi. maanta maxaa idin wadaa afur wanaagsan walaaleyga qaaliga Ramadaan Mubaarak. karaal noqda codkeyga cawada waxa waaye hergab xuna ay ahaayo marka codka dhana ay go-an saa ujeedin intaana ku afurnay maanta maasha Allah. meeshaan waxaan ku haysanaa pancake, sambuus yar, salad, spinach, bariis iyo maraq yar oo chicken ah ka sameeyay iyo waxaan ku haysanaa kaymaati, ansalaatadii, gaxwo iyo cambaha seytaan soo jirtay maasha Allah. marka walaaleyga waxaa idin leeyahay Ramadaan Mubaarak. kusoo dhawaada channelkeyga hadaa igu cusub tahay subscribe iyo saar, hadaa hore lii joogtana like iyo comment iyo share insha Allah ila qaybsada walaaleyga qaaliga maanta waxaa idin wadaa cleaning oo nadaafad oo jikada marka waxaan rabaa inaan nadiifiyo cookerka insha Allah. miraayada iyo waxa dhan aan kala furfuro si fiican oo kala bixiyo aan ka nadiifiyo rabaa insha Allah. marka walaaleyga maanta codkeyga karaal noqda waxa waa hadalka taa wuu igu adag yahay dhuunta dhana ay go-an ergaba xuna ahaayo maxaa dhahay canjufta taa ku saxanaya marka insha Allah isoo duceey inuu Ilaahay iga qaado. saa ujeedin waa kana waa soo afuray marka alaabi aan ku afurnay oo inta ugu dambeysay afurkaan ku karsaday aan rabo inaan meesha aan ka dhaqo kabacdi insha Allah cookerkan aan soo clean gareysto insha Allah. alaabta wixii oo cuntada aan ka gurgurana insha Allah kulli waa nadiifin doonaa kabacdi walaaleyga qaaliga saa u dhaqaay saa u sameeyna insha Allah waa idin la wadaagi doonaa. kusoo dhawaada daawasho wacan waa kana jikada weli wasaq waaye maanan hagaajinin insha Allah. marka waxaan rabaa inaan oo hadda aan kala hagaajiyo aan kala toosiyo insha Allah. saa ujeedinba waa kana dhulka dhan wasaq waaye waxaan rabaa cuntooyinka insha Allah inaan kala xareeyo kabacdi alaabi iyo soo baxo iyo wixii aan ku cunteen kulli inaan dhaqo kabacdi markaas aan u fariisto hal mar cookerka insha Allah. miraayada aan furo because miraayada dhan wasaq waaye marka insha Allah waxaan rabaa inaan nadiifiyo waa kana alaabi dhan waa soo kala xareeyo wixii dhan insha Allah. alaabta inta seeta ay soo baxday marka jikada waa kana roogi waa kasoo qaaday marka insha Allah alaabta seeta dhaqa kabacdi cookerka nadiifina kabacdi insha Allah full video idin tusi doona saa ujeedisaan wasaq yahay hadhowna waa idin la wadaagi doonaa marka dhaq kabacdi kor iyo hoos ka soo dhaqa insha Allah. miraayada iyo waxa dhan waa soo nadiifinaya walaaleyga saa ujeedin horta alaabti waa soo dhaqa waa kana meesha ku baangay waxaa rabaa inay ii qalasho kabacdi insha Allah. waxaan meeshaan soo dhigtay mindi aan ku furfuro spray oo miraayada lagu clean gareeyo super bright iyo ooma ku jira caaga kale meesha yaalo saa ujeedin gudaha waa kana saliida oo panka igu jirto insha Allah wax ku dudubto waa ka soo bixinaya kabacdi insha Allah dhaqitaanka guud galeena walaaleyga daawasho wacan waa kana saa ujeedin waxaan sameeyay kooda hore spray aan kusoo diray xoogo laakiin wasaqas fiican ma ugu bixin marka waxaan rabaa dhalada dhan inaan furo meesha neeta oo screw-yaasha ku xirxiran insha Allah aan ka furaya kabacdi waa isla arki doonaa waa kala furaa gebigiis dhan aan kala bixinaa because gudaha seeta rabaa waxaas cadcadka oo marmaray liidliidka inaan ka dhaqo waatana miraayadii hoos waa soo furay walaaleyga iska jira cause aniga hada miraayada waa iga jabi lahayd waa inaa si tartiib ah u furtid hadaa rabtid inaa furtid haddii kale waxaa miraayada haday jabto khasaaro waa cookerka dhan dhow ma isticmaal maayo. saa ujeedin meelaha seeta dhan aan soo nadiifinaya meelaha luuqluuqyada aan nadiifin karin hadda kastoo waa soo dhaq saa ujeedin laakiin luuqluuqyada dhan weli maanan gaarin marka bahashaan intaan soo qaato dhagaha lagu iskaga tirtiro insha Allah. waxaan rabaa meelaha ofarteyda ay geleynin inaan kusoo nadiifiyo insha Allah. waa kana saa ujeedinba waan soo xirxiray nadiif u noqday waraaqda kor ugu dhegneed kulli waa kasoo fujiyay saasoo clean u noqday maasha Allah. geedkii alaabta inta oo saarnayna waa ka qaaday meesha say ku qurux badan tahay walaaley. marka jikada saa ujeedin ay noqotay nadiif maasha Allah clean everything is clean fadhiga clean aan ka dhigay insha Allah. marka waxaa idin la wadaagi rabay maadaama oo hadda Ramadaan ay tahay waxaan sameeyaa cleaning maalintii subaxda hore
intaan soonka karina aan samaystaa. Hadhow marka insha Allah marka afuro sameyska aan ka baxo saa ogtihiin markii la afuro xoog lama hayo waxaa waa jirki dhanaa kala dhacdhaca insha Allah waa la daalaa marka subaxdii hore shaqada oo guriga iska qabtaa habeenkii marka alaabta iyo wax seet bisla iyo haraayo walaalahayga marka insha Allah inta shaqaale u joogin waxaan rajeynayaa intaas inta ka faa'iideysan doontiin subaxdii inta ciyaalka ka jiifaan subaxnimo ka ciisa maadaama hooyo leeyahay inta shaqada ugu horeysa dhan iska qabanaysa ka bacda dhow afur karis iyo waxyaabo kale la ku hara insha Allah isoo duceysa ujeedin herga waa tacbaan la hadalka igu dhib marka walaalahayga qaaliga insha Allah daawar ilaa joogtay maxaa la comment iyo share insha Allah hadaa igu cusubtahay subscribe iyo saar kunka wax yar aan ugu dhiman boqol wax yar dhiman aan ugu dhiman insha Allah sidaas iyo haween wanaagsan maca salaama.